بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد آياتها قرآنك وعدك دينك أو نلا وعدي الله نقو أنفعه ساكي شركان أن السجون نمت واسيادة نبضونا ذا علماء الدين كدت شرفت له هويين كقبلها والسلام هنا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كان لنا لبعتك جرت قبل كجدو لبعتها يا وذوية لبعتها يا وذو أنا غير جبلين بانهاي جبلين وحن كان هاي فدرال يعني كان هاي دولة فدرال كهاد باودا دبعتها قبل كجدا ساد الله ساوتامبا لو جنانا دولو بلد حاوة قلف عرادات باكتير قلف كاس حقي كيماد حقو كيمادي دولة فدرال كيا ودا arrimaha saan doonaynaa saaka inaan ka hadalno waa lagu geeriyooday gulufkaas colaadeed waa lagu dhaawacmay waa lagu qaxay oo qax baa ka jira dhibaatadaas foosha xun baa ka jirta gobolka gedo nasiib darro weeya dowladdii federaalka ahayd oo ummadda dowladdiisi ahayd inay dhibaatadaas waddo nasiib darro aad u xun wey waan ka digaynaa saaka aan daannahay odayaalka dhaqanka aniga magacayga waxaa la yidhahdaa ugaas maxamed ugaas xasan ugaas yarow ugaaska beesha sadaan ahay ama mareexaan ninba sida u yaqaano waan ka xumahay dhibaatadaas jirta waa aad baan uga xumahay gobolkaas gobol nabadgelye buu ahaa cadow baan lahayn cadowgaan lahaynna waa la yaqaanaa cadow tilmaan e buu ahaa waa la yaqaanaa soomaali oo dhan way ogsoon tahay soomaali oo dhan cadowgeeda wey dowladda federaalka in maalin walba ay meel ku duushana dhibaato inteeda la eg weeye galmudug baan arkaynay dhibaatada ka jirta puntland baa laga cabaadahayaa oo dhibaato ka jirta oo laga cabaadahayaa jubbaland baa haddeerna dhexdeedii bay dhibaatadii ka wadaa waxaan baaq u soo jeedinaynaa baaq dheer u soo jeedinaynaa dowladda federaalka dhibaatada ay wadda ummadda ha ka joojisa madaxweyne ninba maalin buu soo maraa ku-meelgaar baa la soo maray dowlad dhaxaa la soo maray dowladda hadda joogtaa la marahayaa waa nasiib darro aad u xun weeye nasiib darro aad iyo aad u xun weeye maxamed cabdullaahi farmaajo in maalin walba gobol isdhibaateeya waa waxaan la yaabanahay wey ha ka joojiya ummadda dhibaatadu ku haaya ha ka joojiya taariikh baa jirta madaxweyne walba laga qoro oo maalin ahaa jirta war madaxweynihii jeerkii muxuu sameey baa laleeyahay taariikhda beri baa la akrin doonaa ninba maalin buu hayaa nin ku waarahaya ma jiro aadan cabdillah cismaan baa ugu horreeyey cabdiriid cali sharmaakaa ku xigay maxamed siyaad barraa ku xigay cabdiqaasim baa ku xigay mase wax baan dhaafay nimiyo cali mahdi baa muddo kooban hayey cabdiqaasim baa kaga dambeeyey cabdullaahi yuusuf baa kaga dambeeyey
sheekh shariif baa kaga dambeeyey xasan sheekh maxamuud baa kaga dambeeyey maxamed cabdullaahi farmaajaa haddeer haya way degi laadahay soomaaliya way degi laadahay af waxaad lagama dhowro way degi laadahay dhibaatadu soomaali ku haya ha ka joojiyaan leenna baaq dheer baan u diraynaa soomaaliya caalinkaan u diraynaa dadka deriska ayaan u diraynaa dhibaatada ka jirta gobolka gedoos haddeer ka socota ka joojiyaan leenna haddii laga joojin waaye kolley nin walba wuxuu ka maal u leeyahay wuxuu ka maala buu leeyahay wuxuu ka maal u leeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhibaatada ha ka joojiyo ummadda beresenta ummadeed baa tahay waa nasiib darre aad u badan weeye in ummaddii haddeer ad qaxinaysa ciidamo ku guraysa u adeegsanaysa hooyooyinkii ay duurka ku dhalahayaan dhibaato inteeda la eg weye dhibaato inteeda la eg weye waxaan soo jeedinayaa magacayga iyo magaca odayaashaba anigoo ku hadlaya iyo magaca reer gedaba dhibaatadaas ha laga joojiyaan leenahay gobolka geda lagu haya iyo gobolladoo dhan gobollada oo dhan aniga hadalka intaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu